Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Dib ayaan ugu soo laabtay Mastering Power Within Channel. Anigoo daadhinay ayaamahan waxa ku saabsan narcissist iyo astaamaha ay lahaayeen. Thank you so much inta maaragtay share gareysay inta inay benefit maaragtay ay ka heleen oo messageyada emailka igu soo diray, commentiga igu reebay aad iyo aad u mahadsantihiin, iyo qaarka WhatsApp igu soo diray messageka waayo last video marka aan duubayo waxaan aad uga hadlay maaragtay dadka ay waali ku ridaan oo maaragtay ay ku dhahaan waad soo waalan rabtaa dhibaatooyinkaasna waxaan runtii usoo qaatay dad badan oo ku dhibaataysan ayaa jiro oo again fahmaynin qaabkii uga bixi lahaayeen. waxaan doonayaa insha Allah haddii Allah ka raali noqdo in aan channelkan sii wadi doono topigan ilaa aan maaragtay asalkiisa ugu dambeyntiisa aan gaaro, waayo hadda waxaan taabanayaa dhibaatooyinka iyo waxa ay dadka ku hayo iyo astaamaha lagu dareemo maaragtay dadka ay ku dhiban. laakiin insha Allah waxaan ka hadli doonaa how to handle sidee dadka maaragtay naftaadan uga badbaadisa oo la dhaqanta. Okay, now anoo usii gudageli doona insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa yaa ku ah magnet dadka narcissist, dadka ee magnetka ku ah ee badanaa targetkooda uu yahay. waxaan rabaa inaan maaragtay dadkaas personality ahaan inaan ka hadlo. runtii markaan ka hadlaayana waxaa dhici karta in aad isku aragtid astaamahaas oo again haddana aan mar labaad kusii dhahayo this is waxa waaye maaragtay again description waaye faham awareness mowqifkeyga ama yacni ujeedadeedu waxay tahay inaad fahantid si aad naftaada u badbaadisid. waxaan ka hadli doonana waa qodobo qaar inay sensitive noqdaan oo aad darintida dhici karto, laakiin waxaan ula dan leeyahay inaad fahantid dadkay raadsadaan yacni dadka maaragtay oo ah narcissist ama dadka magnetic ku ah. magnet waxa waaye birta magnetka waa aragteen waxay ku dhigtaa waxa magnetka usoo dhawaado, laakiin dadka narcissist ah waa dad clever ah, dadkay doortaan ay magnet ku yihiin. taas ayaa maaragtay video uga hadli doonaa. stay tuned insha Allah. iskuna day inaad qof kale ula share garaysid si ay maaragtay ayagana uga faa'iidaan haddii aad ogtahay inay ku dhiban yihiin ama ku xaniban yihiin arrimahan oo hadda ka hadli doono. okay, waxaa number 1 marka aniga waxa walba idin siiyo qodobo idin siiya qodobadan waxa idin siinaa dib ugu noqotid oo research samaysid oo si fiican u sii fahamtid ana u darintid. qodobka koowaad oo aan ka hadli doono because waxaan rabaa inaan ka hadlo laba dhinac. one waxaan ka hadli doonaa dadka magnetka ku ah, and again dadka magnetka ku ah qayb ka mid ah ayaa waxaan ka hadli doonaa quality ay leeyihiin iyo narcissist ma aragtay opposite ay ku yihiin ayaan ka hadli doonaa dadka narcissist ah ama dadka isla qab weyn ama dadka isla weyn. walaalo waxaa jira commenting igu raabay igu dhahay ereyga qab weyn waana qaatay maaragtay waa erey wanaagsan waayo dictionary Soomaaliga waa isku daya inaan ka raadiyo, waana jecla inaan wax walba ku sheego af Soomaali si ay dadkan uga faa'iideystaan ugu dareemaan. waxaan ka cararaa in aysan la fahmi waayo, laakiin wixii aan la fahmi waayo aniga aan fahmi waayo si fiican Englishkiisa ayaan kusoo tuuraa si adiga aad u fahantid oo aad laftigaaga u raasatid oo aad shaqo isa siisid si aad ku heli lahayd macnaha uu leeyahay. okay, number 1 yaa magnitude ku ah. waxaa magnitude ku ah dadka la yiraahdo over empathy. anigu aan fasiri doono over empathy, overly empathetic dadka ah oo empath, dadka zaa'idka u damqado. damqashadu way fiican tahay, yacni qofka inuu damqado oo dadka kale dhibaatadii ay marayaan uu ka damqado uu ka xanuunsado dhibka saaran. yes, waa number 1 dadka empath waa wax wanaagsan. inana joog insha Allah waan ka hadli doonaa gadaal quality-ga ay leeyihiin iyo waxay yihiin, laakiin waxaan ka hadlaa dadka overly ah oo zaa'id. wax walba waa inaan u sameyno qiyaas. waxaad jeclaan too much u jeclaan, waxaad nicin too much u nicin. waa ogtahay inay teachingkeena islaamka uu ka mid yahay. marka waxaan ka hadlaa xitaa dadka overly damqada. waxaa jira dad ah naturally empathy oo dadka ka damqada oo dareema astaamoodana waa ka hadli doonaa. laakiin dadka targetka ay ka dhigtaan dadka maaragtay narcissist dadka xun waa dadka overly empathka ah. why reasonka marka ku siinaa. number 1 waa they can see pain inside the narcissist. waxay ka dareemaan qofka narcissist ah inuu maaragtay gudaha uu pain ka dareemaya xanuun. ogow dad qofka narcissist ah wuu ka maqan yahay empath ma lahan. again markay ay ku noqdaan drone number 1 maxay ka helaan nafaqada ay ka helaan faa'iidada dadka narcissist ay ka helaan qofka damqashada badan, qofka damqashadiisu zaa'id ka tahay actually oo dadka ka damqada oo empathka ah waxay ka helaan number 1 they keep feeding wax yani care. waayo qofka maaragtay empathka oo damqada waa qof naxariis ilaahay u dhaliyo, waa qof ka damqanaya qofka la dhibka u maraa uu dareemayo. marka maxay sameeyaan they feeding ya quudinayaan maanta oo dhan gudihii oo ay feeding ku sameynayaan dadka maaragtay oo ah narcissist because narcissist empath ma lahan. kadib maxay noqdaan trap ay ku noqdaan waayo way ku daalaan ilaa marka dambe ay ku jabaan daalkaas ay ku dareemaan.
number 2 waxaa magnitude ku ah ama narcissist maaragtay ku ah magnet oo ay soo jiitaan oo markasta ay jecel yihiin inay dadkaas haystaan. waxaa ka mid ah people who offer kindness, dadka naxariista offer garee, rescuers, dadka maaragtay dadka for example oo kale qof baa albaabka ugu soo garaacay, dadka empathygana way og, dadka sorry narcissist way og yihiin target audience dadka ay raadsadaan. dadka ay raadsadaan waxaa ka mid ah empathy aan soo sheegay again iyo dadka naxariista oo rescue sameeyo. dadka for example adduunku waa aragteen good and bad uu kala leeyahay. dadka rescue waxa waaye dadka qofka homeless oo kale, qofka dhibaataysan, qof yacni dadkiisi familkiisa ay soo riixeen, qof la takooray, ama qof yacni familka ay u adkaysan waayeen dabeecadiisa ay gaar iskaga bixiyeen. qofka rescue marka wuxuu isku dayaa dadka asaguna ogeyn ayuu maaragtay drone ku noqdaa oo qofka narcissist u imaada. narcissistkana wuxuu ogyahay in qofkan uu maaragtay rescue ku sameyn doono, ay u cawdaan dhibaatadoodii wixii, qofkiina uu soo xambaarsado gurigiisa uu keeno. waxaa dhici karta in maaragtay noloshiisa u furo oo open u noqdo, qofkaana marka dambe uu dareemo meesha uu rabe uu yahay. waayo qofka narcissist again ma lahan maaragtay empath mala, wax ka maqan ayuu helay. pointiga marka rabaa inaan ka hadlo, pointiyo badan aan rabaa inaan ka hadlo si fiican u dhageysta oo dhanka empathy ku saabsan. qofka narcissist marka number 1 lack of empathy waay, ma lahan damqasho, laakiin waxay opposite ku ah dadka damqada ayaa opposite ku ah. marka waxay raadsadaan dad u damqada. so dadka u damqana empath person is the opposite because of they made it out. qofka empathkana waaba qof damqasho ilaahay u dhaliyay oo ka damqada dadka kale dhibkooda. so markay ka damqadaan waa wax naturally ay u haystaan, ayagaaba laga sameeyeyba damqasho inay dadka damqadaan. laakiin qofka narcissist ah oo maaragtay oo isla weyn oo isla qub weyn damqasho ma lahan. so marka waxay ayagana damqasho maadaama ay lahayn, labadooda energygooda is feeding, waa isku soo yacni way isa soo raacsadaan. again qodob kale aan ka hadli doono empathyga maaragtay, waxaan ka hadlayaa empathyga qofka ah. they see the maaragtay the empathy see well through others. waxaa ka wadaa dadka empathyga ah oo dadka damqada dadka kale ayay ka arkaan si fiican ayay ku arkaan. waa wax maaragtay gift ilaahay siiyey, waa wax Allah subxaanahu wa tacaala maaragtay siiyey, waana gift wallahi wax laga faana maaha, wax qaldan maahan ina qofka kale uu ka damqado waxyaalaha quality ugu weyn. laakiin waxaa jiro giftigaas ilaahay ku siiyey inuusan noqonin overly oo aad maaragtay uu noqonin oo aad u isticmaalin si overly ah. again inaad baratid inaad taa horta marka hore alxamdulillah qof empathy aad tiraadid. ana waa ahayd safiya ahaan to be honest qof dadka u damqada, dadka maaragtay dareema dhibkooda ama dhibaatadooda. laakiin waxa aan bartay sida qaabka maaragtay aanan dadka kale aan idin sheegi doono qaabka oo maaragtay dadka aad ku fahmi kartid. okay, empathy marka powerka kale uu leeyahay, they have a super power to heal other problem. waxay leeyihiin awood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey dadka kale ay healing ku sameeyaan issuega ama dhibaatada ay marayaan. why? because naxariistaas ilaahay jiibka gudaha uu ku abuuray oo damqashada ayay ku dhasheen oo ayay leeyihiin. laakiin qofka narcissistiga waxa ka maqan jiibka ka maqan oo nolosha waaye. and again waxay dareemaan dadka empathyga haddana ka hadlaysa u fahantiin dadka damqada, they see broken. qof waxay arkaan broken pieces, qof yacni noloshiisii maaragtay meelaha ku kala tuuran oo yacni broken ah. waxay kaloo arkaan dadka inay iska dareemaan qofka uu naftiisa iska aaminsan inuu ugly yahay. waxaa dareema qofka damqashada leh inuu qofka kale sad yahay, murugaysan yahay ayay dadka ka arkaan. okay, ma xuma inay dadka ka arkaan, laakiin waxaan ka hadlayno waa narcissist. waxa dadka uu raadsada targetka uu ka dhigto uu dhibaateeyo waxaa ka mid ah oo modron ku ah topigan uu maanta ku saabsan. again waa dadka empathy, dadka maaragtay empathyga iyo dadka rescuers. qofka marka narcissistiga ah they know this is waxaan rabaa qodobka ina ogaato. qodobka saddexaad, narcissist person oo maaragtay ama qofka she ama he ama maaragtay waxay og yihiin in maaragtay ay rabaan noloshooda qof ah empathy inay helaan, qof damqada inay helaan. waayo again haddaan dib usoo noqdo to boost their battery, in batterigooda uu maaragtay usii jaaj garaysmo. waayo again this is waxaa ku jira xigmada ku jirto. una fiirsa dadka isqabo, u fiirsa dadka maaragtay shaqo meel isku darsado. labada qof opposite kala yihiin. qof waa qof damqasho badan, qofna waa qof dhaga adag ama qof maaragtay madax adag ama qof waxaa waaye yacni aan damqasho lahayn aa dhici karto. dad waxaa jiro kindless, dad waxaa jiro aamusan oo aan hadlaynin oo aan codkiisa dhacsanaynin, iyo qof codkiisa dhacsanaya labada ilaahay isku daray oo guur isla wadaago kale for example, si ay maaragtay labadoodaba benefit iskugu sameeyaan. qofka fiiri qofka for example oo kale aamusan, qofka kalena waxaa laga yaabaa inuu qof hadal badan yahay. qofka hadalka badan
waa wax ilaahay u siiyey qofka aamusanna waa wax ilaahay u siiyey for example then again qofkaas aamusan waxa ka maqan waxyaalo ma aragtay uu u baahan yahay jirkiisa naturally maskaxdiisa naturally oo ma aragtay again subconsciously ayagoon is ogeyn labadooda ay isku deeqsiinayaan oo up and forth u soconayo waayo qofkan kale wuxuu u baahan yahay inuu ma aragtay sometimes hadalka inuu hadlo waa muhiim inuu qofka aamusnaanin uu iscaburinin laakiin qofkan kale ayaa entertaining u hadlaayo labadoodii ayaa isku aadan taasna natureka ahaan waaye oo yacni wax naturalka labada qof isku soo aadan again qofka ma aragtay narcissistka ahna waayo waxa ka maqan noloshiisa empath dhan damqasha ka maqan marka waxay raadsadaan si ay baterigooda u judge gareeyaan again waxa ka hadli doonaa qualityga ma aragtay qofka uu leeyahay empathiga qofka empathka qualityga uu leeyahay waa soo sheegay overly basa xun qofka inuu zaaid damqashadiisa zaaidkaas oo ogeyn ilaa asagii uu energygiisa drone ku noqdo caafimaadkiisa uu dhib ku noqdo taas ayaa la diidan yahay so dadka marka why ayay u raadsadaan dadka narcissista ah dadka empathiga ah oo damqada iyo dadka kindnesska rescue soo xariista why ayay u raadsadaan number 1 waxay u raadsadaan qofka empathiga wuxuu leeyahay a good listener waa qof dhageysta dadka si fiican u dhageysta markay ma aragtay la hadlayaan qofkaana narcissistana dadkoo dhan baa fed up ka ah waayo marka uu for example oo kale waxay dareemayaan waayo gudahoodii ayaa shidan qofkana opposite ayuu ku yahay qofka empath qofka damqasho ma lahan compassion ma lahan يعني كم جرى جعيل إذا قشوا يقفك كل إنه دريمه إنا إذا درينا ويفي عند قفك إمباثية وقفك كل دريمة نبكى أمرأة حنونك ولا كأمرأة حنونك مركز درينتي وحاوس سمينا so what you can do أو أمارك towards you لكن قف كان كله أو narcissist ما لهن دم قشة again أصور دم قشة ولهن مو هلا قف دقيسته مركو حو كفا إذا يستا وراسدا target audience وكدكتا دتك أو ماركت إمباثية قدب كان عن quality وكشي جاين وبكوز قفك إمباثية دم قشة له وجود لسنا وقف صف عم حو دقيسته كاس أي راسنا قدب ككلام وهذا for example وفيرسو قفك إمباثية they give a great energy بدن أي دتك سيان to be around مركا لجوك تتقف دم قشة له وأقول سكول سوق شعادين أقولين حتى أقف كاس أو يعني أقول سول الحين كلي عندها إكاسو فيريان جوجتان كاس وحيرك أكورسي لفريستين وحد هلي وحكدري مثلا إنرجي جودها إنرجي أي كوسو جود بنايان إنرجي وحكوسو جود بنايان عافي مادلي إنرجي وحكوسو جود بنايان قلبي فرن إكادن قنان يكدري ما إنرجي وحكودري مثلا أجار كود بركة أكفي جديد peaceful نبض قلي أي دري مثلا unlike قدب كان كلا قف كناس marka ag fadhidid dadka ama agtooda joogtid they give a bad energy-gooda bad energy ay ku siinayaan xataa wax laga yaabaa in aad si degan kusoo kacda saakin yani farxad ay haysatay ma sha Allah caadi noloshaada ay laakiin qofka markuu kusoo ag fariistay asagoo drama badan wata problem badan xambaarsan problemkaas oo xambaarsan u fiirso waxa waaye dadka kale in uu ka dhigo oo ka xanaajiyo ama uu dadka kale dhibo again wixii gudihiisa ka guuxayay ما حلين كرو قدام قشة وما لهن وحسمينا مرك uncomfortable أيات كدري مسا to be around them مرك أيجا لجوكتي and again دتك empathy جل و gift to feel something ما عرفت is off and power كل واحد جرو ما شاء الله دتك أهين overly empathy أهين لكن دتك empathy وإلهي نحري يقول لي دم قشة أو لكن زائد دم قشة أهين control زائد مرك إنه حنقولها دتك control empathy دتك also وحي هيستان ما عرفت علامة أما gift أو دتك كلا أنا هيسن وايو قفك narcissist قفك استو أي كود عكرة لكن مركو قفك empathy سو هذا also قفك empathy وحكو جرا gift إن ودريمو there is something off قفكان for example مركو رمو ويقانب نوليش يسأل بابك وحكفر قف narcissist وقدام قاضي وايو قفكان كلا هدي سيلو في psychologically ما دام قفك narcissist ويا هدم قشو ولهن وحجوديس كجوحي عبسي وحكجيرو ما عرفت إنه دريمة مرجو إنه self image كيسو كولسونين إنه قروح ذو إلهي وسيكو كولسونين إنه ما عرفت باهي وسيقة إنه ردتك إنه عبس إذا vampire دتك ما عرفت دتك ليه جود الروح سبحان الله في الماتي وكل جانو كله إنه قف كان سكية هاي أما أسجب اللي صوت نباتي مركو ويرا دن مركو دم وبرتي إنه دتك أسجب نباتيه أو سن درين دن أوصل لهانين لكن أسو ساس قف كان empathy مركب empathy ودم قشة له وحود دريمة مركور إنه الباب مركور مو فهماي وحوس ليه هاي قف والبو الباب كفرة قف كempathy
uu ka damqadaa qof kastoo ibni aadana markuu albaabka ka furo asoona ogeyn isla markii halaha yarka ula fadhiyo wuxuu dareemaa something is off qof waxbaa si ah there is something laakiin most of the time hadduu consciouskiisa aadii subconsciously u dareemaya in something is off inuusan wax saxsanayn laakiin markuu consciously uu u gudbiyo ficil ayuu qaadaa wuxuu dhahaa maaha qofka aan maaragtay wingiskayga u furi laha ama maaha qofka aan shoulderkayga inta u furo aan soo dhawaysto oo aan maaragtay aan nolosheeda open uga dhigo qofkan waa qofka aan iska ilaalin lahaa laakiin ibni aadinimo waxa naxariis aan u sameynayo is mine waxaan u sameynaya fi allah inay iga noqoto allah dartiis aysan noqonin wax maaragtay qofkaan u sameynaya again qofkaas wuxuu bilaabaa inuu is ilaaliyo oo trapkaas ku dhicin laakiin ogow qofka empathiga knowledge qofka narcissist ah subxaanallah knowledge ayay u leeyihiin qofka targetka ay ka dhigtaan wayna ogyihiin la socod programkan insha allah waxaan soo gelin doonaa anoo ka hadli doono hadduu allah ka raali noqdo qaabka maarkin looga baxo iyo qaabka maaragta layskaga difaac laakiin hadda waxaan ku jiraa highlight ahaan waxyaalaha maaragta dadka narcissistiga ah qaabka ay dadka kusoo doortaan iyo dadka maaragtay modron ku ah ama dadka ay soo jiitaan oo magnetka ay ku yihiin again hadday markaan talaabada aan ka hadlayo qodobka ahaa anigu mar labaad kusoo celinayo dadka u fiirso labada qof oo nolosha isku darsado labada qof meel wada mara labadooda ma noqdaan labo isku dabeecad ah labada waxay noqdaan opposite-ka marka ay noqdaana qofka kale wixii ka maqnaa ayaa kaamil isku noqonayo laakiin marka aan ka hadlayo maaragtay qofka narcissist ah oo qofka noloshiisa destroy ku sameynayo maaragtay gudihiisii dhaawacayo waxa u wanaagsan inuu maaragtay naftiisi uu ka taxadaro oo maaragtay barto ina la joog insha allah la soco page-kan waxaan soo gelin doonaa hadduu allah karaan noqdo in aan waxyaalaha uga bixi lahayd qodobada maaragtay ama step by step sida qofka ula dhaqmi lahayd waxaa dhici karta already inaad qofka la dhaqantid waxaa dhici karta already inaad maaragtay dareentid sida hadda walaalo badan emailka ee si maaragtay dib la iga soo warameen ee ii sheegeen inay maaragtay xaaladaas ku sugan yihiin laakiin waxaan dhihi lahaa hold maaragtay tie waxaan soo gelin doonaa qaabka looga baxo for example aniga ahaan Safiyo when I was early 20s waan xasuustaa dad waxaa surround igu ahaa maaragtay oo empathy ka faa'iideysan jira waayo markaas maana aqoon giftiga ilaahay subxaanahu wa tacaala isiiyey oo empathka ah oo maaragtay damqashada dadka kale aan u damqado laakiin waxaan sameynaya overly dadkaasna waxaa daaqada ii soo galayo albaabka ka furaa igu badnaa nolosheeda dadka maaragtay ahaa maxaa la yiraahdaa narcissist dadkaasna waxay ka faa'iideysan jireen waayo waxaan usoo gudbinayay naxariista waxaan dareemayay qofkan inuu diiqa dareemayo ka dhur warka ka dhageyso laakiin markii dambe waxaa noqday in aniga dry out noqday then waxaan bartay how to deal maaragtay ama sida aan u isticmaali lahay giftiga ilaahay subxaana wa tacaala u siiyey iyo dadka directly dadka maaragtay u baahan oo maaragtay u qalma in ay helaan caawinteeda in ay helaan damqashadeeda inaan marnaba joojin inaan maaragta dadka u damqado laakiin aan barto inaan ahaanin overly so aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu